السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هبين وناكسن هذا هبين تهينا قلب ولا سن قلب تهينا سوحنا تدقى صباح تهينا جمعة مباركة. maanta waxaan ka hadlaynaa mowduuc ku saabsan COVID-19 ama cudurka loo yaqaano corona virus. bishii afaad 2020 ayaynu ka hadalnay cilaajka aan nasiixadaha aan u qadimaynay dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. waxaa ka soo wareegay 12 bilood marka nasiixadii aan qadimaynay ee ku saabsanayd cuntooyinka caawiya ee aan lahayn dadweynaha hala gaarsiiyo. maanta waxaan jeclahay videoga inaad share gareysaan oo aad gaarsiisaan tajribadii iga soo martay aniga shakhsi ahaan COVID-19 oo igu dhacay bishii saddexaad 2021 videogii markii ay ka soo wareegay sanad. runtii wixii aan isticmaalayay iyo sidii aan magaranaysaa aan isu cilaajay ama isu daaweeyay ilaahayna igu caawiyay ayaan rabaa inaan dadweynaha la wadaago. marka sida runta ah xulbada geedka aan hadda hor ka sheegay videogii hore ee COVID-19 xulbada oo aad iyo aad u ah geed natiijo fiican keena xaraarada iyo magaranaysaa qufaca iyo allergiga iyo waliba lafa xanuunka ka dawaa viruskana saameeya oo cilaaj u ah. anigu intii uu hayay ama intii la igu sheegay karantiinada waxaan isticmaalayay horta dhinaca cuntada hilibka waan ka fogaaday. waxaan isticmaalayay khudro wax dhulka ka soo baxa oo la kariyay ama baaleyda iyo fruitka wax loo yaqaano fawakaha vitamin C-ga biyo lagu kariyay dhagayaraha iyo qorfaha iyo liin waan isku uuminaynay. habeenkiina liin dhanaan iyo geedka loo yaqaano nacnaca oo la isku kariyo ayaan isku uuminaynay. intaasba natiijad fiican bay keentay alxamdulillah rabbil aalamiin. anigu shakhsi ahaantii positive baa lagu sheegay laakiin wax acraad ah oo aan helay xaraarad ahaado ama magaranaysaa xumad ama qufac ama lafa xanuun ama madax xanuun wax laala waxaan helay oo aan arkay maysan jirinin. laakiin waxa lagu yiri COVID-19 positive baa tahay 2 jeer baa la baaray. markii dambena intaydin baan iska watay alxamdulillah ilaahay baa i sahlay subxaanahu wa ta'aala. waan ugu mahadnaqayaa dadweynahana waxaan gaarsiinayaa videoga inay share gareeyaan natiijada aan ka helay dad horena aan ku tijaabinayna maantana aan anigu isku tijaabiyay oo aan ku arkay natiijadii aan ka helay inaan COVID-19 ilaahay subxaanahu wa ta'aala ugu daweeyay ana kaga bogsaday 14 cisho ee karantiinada aan ahaana alxamdulillah rabbil aalamiin. waxaan dareemin si caadi ah ayaan garanaysaa isaga joogay. maantana waan rabaa inaan la wadaago tajribadii aan ka soo gaaray COVID-19 share dhahaya videoga walaalaheen Soomaali meel kasta ay joogtaan bagaarsiya aad iyo aad baad mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.